السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا علي أكاديمي وعشر كي شنادو ريفيشن أما مراجعة عشر كنا ما ندور كسو أبسن يهي ناونس وكلمة وحانين نقون كران countable أما uncountable countable ولا ترين كرو uncountable نلما ترين كرو marka waa maxay horta marka hore nouns waa maxay nouns waxay noqon karaan place meel example London waxay kale noqon karaan person qof Ahmed qof magaciisa oo kale waxay kale noqon karaan things waxyaabo for example ama tusaale car book waxyaabaha magacyada for example table waxaasoo kale oo dhan waxa weeye things countable nouns waxa weeye waa pen book waxyaabahaas kale waa wax la tirin karo lana taaban karo uncountable nouns waxay noqon karaan water advice biyo talo waxyaabaha ma tirin kartid waxyaabaha aan tirin karin ayay noqon karaan aynu eegno qaybta kale ee casharka waxaynu hadda eegi doonaa regular concrete nouns nounska la taaban karo kuwaasoo aad isticmaalaya a and an marka markay singularka yihiin ama kelikelida yihiin a an baynu isticmaalaynaa waxaynu odhan karnaa a flower waa ubax a mountain buur a tree geed a giraffe waa geriga xayawaanka an apple anta waxaynu isticmaalaynaa markay kelmaddu ka bilaabanto a e I o u shaqalada gaagaaban markay ka bilaabanto kelmaddu ayaynu anta isticmaalaynaa for example an apple tifaax an elephant maroodi an animal xayawaan an umbrella dallad an actor waa qofka filimka matala actorku waa qofka filimka matala haddana waxaynu eegi doonaa kelmadihii isla iyagii oo ah plural ama jamaca markay jamaca yihiin waxaa la isticmaali karaa s ama waxaa la isticmaali karaa some so waxaad oran kartaa flowers ama some flower mountains ama some mountains some trees ama some trees giraffes waa geriyaalkii oo mid iyo laba iyo wax ka badana waxaanad kale odhan kartaa somena waad isticmaali kartaa apples tifaax some apples some elephants some animals ama some animals umbrellas actors markay jamac yihiin estana waa la isticmaali karaa somena waa la isticmaali karaa halkaa waxay noogu dhammaaday qaybtaas haddana waxaynu u gudbi doonaa qaybtan oo ah an exceptional rule waxa weeye markay kelmaddu iyadoo ka bilaabmaysa h haddana an isticmaasha waa dhowr kelmadood oo iyagunbaa loo isticmaalaa anta iyagoo ka bilaabmaya h because htu waa silent haddaad tidhahda imanka an anwar anwar bay noqon lahayd because htu waa silent waxaad odhanaysaa an anwar antaasaad isticmaalaysaa an honesty person marka hta laguma dhawaaqayo sidaa awgeed baa loo isticmaalay anta waa dhowr kelmadood oo kooban marka an honesty person waa qof daacada hadda waxaynu eegi doonaa irregular nouns aan caadi ahayn oo aan st iyagu ma qaadan markay jamac yihiin sta ma qaadanayaan iyagu waa caadi maaha waa irregular nouns caadi aan ahayn so aynu eegno markay yihiin singularka ama kelikelida sheep markay pluralkii waxay ku noqonaysaa sheep isma bedelayso markay kelida tahayna waa sheep oo lax ah neef ari ah ama ari marka oo badan yahayna waa sheep isma bedelo tooth waa hal ilig oo ilkahaaga ka mid ah teeth waa jamac markuu yahay ilkahaaga oo dhan mouse waa jiir mice waa jiirar badan person waa qof people waa dad foot waa cag hal cag feet waa cagahaaga labadaada cagood ox dibi oxen waa lo oo lab ah child hal ilmo children caruur leaf waa caleenta dhirta saaran leaves hal caleena leavesna waa caleen fara badan
marka halkaasina waxay noogu soo dhamaaday qaybtii irregular-ka ahayd kelmadihii oo markay jamciin aan s qaadan markii hore ay regular-ka ahaayeen s bay qaadanayeen ama some kuwa aan jamcayna somena way qaadan karaan oo waxaad oran kartaa some sheep some mice some people some children way qaadan karaan markaasna somena waa loo isticmaali karaa markay jamc yihiin mar walba jamca somta waa loo isticmaali karaa aynu eegno qaybta kale ee casharka hadda waxaynu u gudubnay uncountable nouns oo tangible ah oo la taaban karo waa noun waa lama tirin karo laakiinse waa la taaban karaa water waa taaban kartaa biyo air waa airka sun camuuda rice bariis sugar milk caano oil saliid wood loox glass waa galaaska metal waa bir homework waa cashirka laguli kasoo shaqeey oo lagu dhiibay waxaasoo dhan waa taaban kartaa laakiinse lama tirin karo sidaa awgeed some baa la isticmaalaa some water some sun some rice some sugar some milk some oil some wood I have some homework kuwanina waa la mid oo snow waa snowga ama qabow barafku markuu soo dhaco snow cheese waa subaga meat hilibka luggage waa shadadaha la qaadato shadadahaaga markaad diyaarad raacayso kale ayaa luggage la yidhaahdaa flour daqiiqda blood waa dhiigga honey malabka rain waa roobka da'aya petrol waa petrolka salt waa oil so kelmadaha noocaas waxaa loo yaqaana iyaga uncountable nouns oo tangible ah oo la taaban karo somena waa loo isticmaali karaa haddana waxaynu u gudbaynaa uncountable nouns oo ah intangible waa kelmado nouns ah oo aan la taaban karin oo markaan isla eegno haddaan dhahdo power quwad waxay noqon karaan like power quwad waa power waa quwad patience samir forgiveness cafis hope rajo information war confusion wareer experience khibrad speed xawaaraha for example tuu gaariga ku socdo iyo tuu computerka ku socdo kale entertainment madadaalo advice talo love jacayl happiness farxad freedom xorriyad justice cadaalad peace nabadgelyo knowledge aqoon truth runta time waqti friendship saaxiibtinimo beauty qurux wisdom waxay noqonaysaa xikmad kelmadahaasi waa nouns waa qayb nounska ah waxaa loo yaqaanaa intangible ama abstract halkaasna qaybtaasa inoogu dhammaaday casharka intaasuu inoogu eegyahay intaynu ku kulmi doonaa casharka dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu